السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qiimiga iyo qadarinta mudan aad baan idin salaamaya meel kasto daafa caalamka aad ka joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal saacadii la soo dhaafay guud ahaan baraha bulshada Soomaalida waxa aad u gilgilay raaf ka dhan ah Soomaalida ku nool xaafad Islii waliba cabsi weyn ku abuuray sidoo ogsoonahay shirweyne ee wada yeesheen laamaha amniga iyo Islii business community-ga tagaasileyda iyo mootooyinka ama biki qof walba si uu yaqaano iyo qaar kamid ah shacabka xaafad Islii taas oo hoosta laga xariiqay in amniga si wada jir ah xaafad Islii loo sugo haddaba wararka xilliga soo baxay ayaa sheegay in raaf ka dhan ah xaafad Islii oo dhici doono waliba guryaha la isugu geli doono taas xabsi baaxad leh ku abuurtay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed haddaba Umar Ibrahim Xuseen xogayaha guud ee guddiga ganacsatada Soomaalida xaafad Islii iyo xaaladda guud ee amniga xaafad Islii ayuu warbixin ka bixiyay waliba dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafad Islii sidii kaga fahmeen raafka inuusan ahayn waliba aysan jirin cid guryaha isugu galayso waliba isdhibaateynayso kaliya waxa halkaasi kaga hadalnay waxyaabo yar oo kooban oo amniga quseeyo waliba adiga qayb libaax la ka qaadan doonto guud ahaan muuqaaladaas intaan soo guda galin hadii ay satay booqashadaada ugu horeysay waxayna si xushmad ku dheehantay kaga codsanay walaal inaad ugu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan sidoo kale waxayna si xushmad ku dheehantay kaga codsanay qof walba muuqaalka daawanaya inuu laagtay isharti soo kandar si guud ahaan muuqaalkeena uu gaaro bulshada Soomaaliyeed reer Islii iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi war farxad leh ayaan idin sidaa saacadii la soo dhaafay waxa guud ahaan qulubta iyo qalbiyada dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafad Islii cabsi geliyay raaf ka dhan ah inuu ka dhici doono xaafad Islii laakiin warkaasi waa ay beenoobay kadib markii uu hadlay Umar Ibrahim Xuseen xogayaha guud ee guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafad Islii wuxuu sheegay shirweynahaas ay yeesheen laamaha amniga Islii business community-ga tagaasileyda Soomaalida guud ahaan Kenyaanka iyo biki rag ku shaqeystaba in halkaasi qof walbo ay mas'uuliyad ka saaran tahay qaabkii uu amniga u sugi lahaa waxay halkaasi kaga hadleen ayaa waxa kamid ah in aad looga taxadaro biki ku cusub xaafad Islii ee dhibaatada u horseedaya bikiyada kale ama mootooyinka kale kuwaas oo halkaan u yimaada inay dadka dhibaateeyaan amba dumarka boorsooyinka ay ka dafaan wuxuu kaloo halkaasi kaga hadlay qof walba oo ku nool xaafad Islii amniga qayb libaax leh oo kaga qaadan karo wax walba oo lid ku ah amniga ilaa ma amniga qaybta ugu dhow oo ogeysiyo dariskiisana oo ka warhayo si guud ahaan xaafadda si amni ah loogu noolaado looguna shaqeysto bal waa kan mudana Umar Ibrahim Xuseen xogayaha guud ee guddiga ganacsatada Soomaalida xaafad Islii oo nooga warbixinayay muuqaalka ayaan aan wada daawano waxaan inta kale iska sii cadeynaya CEO-ga raaf uu yiri raafka Soomaalida waxay u tafsiiratay in xaafadda operation culus oo yacnaha dadka dhibaato la gaarsiinay marka dadka waxaan leenahay shacabka waa xaalad waa degan tahay wax dhibaa ma laha amni darro oo culays oo zaid ma laha laakiin waxa la sugayaa wixii yar ka xaafadda ka dhacay bariyahan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعمر إبراهيم حسين حوجي جود جودي ganacsatada Islii Business District Association markii la soo gaabiyo loo yaqaan EBDA waxaan halkan ka cadeynaa inaan ka hadlo xaaladda guud ee amniga Islii guud ahaan markaan ka hadlo amniga Islii waa sugan yahay wax walwal ah miswal bahara ama tension ah ay dadka ay maarta dadka qaarkiis ay hadda aaminsan yihiin xaafadda khalqala ka jiro amni darra ka jirto yacnaha operation iyo raaf ayaa ka jiro guryaha lama degnaan karo askartiga guryaha dadku ugu soo galayso waxa saday dadka aaminsan ma jiraan taas inaan halkan ka cadeeyaan u soo fadhiistay guud ahaan amniga xaafadda waa sidiisi hore ka fiican way wax amni darro ah oo qalaalaalsa ah yacnaha dhib ah culays ah ma jiro oo xagga dawladana ka socdo ma jiro laakiin waxaan cadeynayaa in xaafadda shirka hadda taariikh 27 la galay uusan ahayn shir caadi ah looga hadlay amniga xaafadda waxa waxyaalaha laga hadlay markaas oo ugu muhiimsanaan waxay ahayd booda dadka mootooyinka wata amni darrada boorsooyinka maamooyinka ay ka qaadanayaan dhibaatada ay xaafadda ku hayaan in maarta wax laga qabto iyo wiilasha superpowerka oo soo batay bariyahan iskuuladii xiran oo meel kasta taagan oo tooreyda wata ama bismillah wata kuwaas in wax laga qabto amniga
amniga intaas la sugo la xoojiyo amniga hore u jira in la xoojiyo ayaa shirkaas loo qabtay maahane wax hadda zaa'id ah amse dheeraad ah oo xaafadda ku wajahan amse shacabka degan ku wajahan malaha amse ganacsigaana ku wajahan dawladda mar walbana waxay nagala shaqaysaa in maarta amniga intii wixii yar yar oo dhaca inay wax nagala qabato shirarka noocaasna mar walba waa dhaca hadii wax anaga aan maarta ay wax jiraan waa la fadhiisanaa wixii si loo sixi lahaa mise maarta meel loo saari lahaa baa laga hadlaa taasna shirar noocaas ahayd wixii oo khaladaad oo amni darro ah oo maarta subabaawa iyo magacyo badan baa isku sheegeen oo bariyahan qof xagga lagu toorey qof mobile laga qaatay waxyaalahaas yar yarka apetiga ah in wax laga qabta ayay dawladda shirkaas u qabatay iyo booda inay maarta ishabeeyaan stage kasto ay joogaan ay iska warqabaan dad banaanka ka imaaday oo meelo kale ka imaaday oo la aqoonin inay stage-ka ay ku soo biirin si loo sugo amniga dadka shacabka iyo ganacsatada islii u soo ganacsataga intaas ayaa shirkaas loo qabtay wax uleys kale oo zaa'ida oo waxa laga yaabaa waxaan inta kale iska sii cadeynaya CEO-ga raaf uu yiri raafka Soomaalida waxay u tafsiiratay in xaafadda operation culus oo yacnaha dadka dhibaato la gaarsiinay marka dadka waxaan leenahay shacabka waa xaalad waa degan tahay wax dhibaa ma laha amni darro oo uleys oo zaa'id ma laha laakiin waxa la sugayaa wixii yar yar ka xaafadda ka dhacay bariyahan in dawladda ilaa mar walba shaqadeeda amniga waa shaqada dawladda sare waay national government waxayna lagala shaqaysaa in wixii yar yar ka dhaca in la sugo taas baa maarta meel la saaraya dhalinyaradaas iyo waxaas iyo dadka inay iska dukaameystaan waqti maarta ay ganacsigooda xor u yihiin xilliga ganacsigooda ay furtaan taas ayaa dawladda wax ka qabanaysa culeys kale oo hadda zaa'ida ma laha dadka shacabka Soomaalida iyo dadka ganacsatada islii ku maarta degan waxaan u sheegayaa xaaladdu waa degan tahay wax dhibaa ma laha hal ganacsado caadi loo ganacsado qofkii khalad wadana dawladda waa in gacan lagu siiya qofkii dhibaato wadana dawladda waa in gacan lagu siiya sababtoo meesha degan tahay hadaa dawladda aan la shaqeyn biri aday ku saameeyeen dadkana oo waalid kastana cunugiisi iyo inuu ka warqabo meeshuu joogo xilligu soo galbanaya si maarta dhibaato kale oo maarta amni darro aan u galin marka taasna waa wax had culeys kale zaa'id gooni ah malaha shaqadaas in maarta dawladdan ay naga sugtana aadaan ugu mahadcelinayna waana la shaqeynayna nin kastana waxaan ka codsanayaa inay dawladda la shaqeyso amni darrada amniga waxa la yiraahdo adigu ka bilowda inaad dariskaagana ka warqabtid qofkii dhibaato ku keenay aad dawladda la share gareysid intaas baal raaw maahna wax culeys oo maarta dareen oo xaafaddu waasaas la leeyahay ma jirto ayaan taas inaan cadeeyaan halka u soo fadhiistay waana mahadsantii aad buu mahadsan yahay mudane Cumar Ibrahim Xuseen sida quruxda badan oo inooga qanciyay sida aan wax u fahanno mooyaane ee ahayd in raafka uu saameyn ku yeelan doono guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii taa bedelkeedana oo inoo cadeeyay qof walba oo dhibaato ku ah ama lid ku ah amniga in gacan bir lagu qaban doono qof kasta oo ku dhaqan xaafadda Isliina ay mas'uuliyadu qaybteeda ka saaran tahay meeshii aad ka aragto dulduleel ama shaki aad ka qaado waa inaad laamaha amniga ogeysiisaa si halkaasi loo baaro loona xaqiijiyo dhibaatada ka taagan si annagana aynu ugu wada noolaano amni nabadgelyo iyo horumar ballaaran haddaba waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo tagaasileyda Soomaalida ee guud ahaan magaalada Nairobi ka shaqeysta dhalinyaro badan oo Soomaalida waxaa jira tagaasiley ah laakiin taksiga ku qaata hub ay ayaga naftooda ku difaacaan haddii ay la kulmaan marxalad ka dhan ah in ay tuuga soo hujuumaan dhalinyarada badan waxaan arkaa in gaarigu u saaran yahay but qaarkoodna u saaran yahay baangad kuwaas oo naftooda iyo gaarigooda raba inay ku difaacaan laakiin halis gelin karta amniga loogana shaki karo lana tuhmi karo inay yihiin rag dhibaato ku ah amniga qof walba oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ee gaarigiisu saaran tahay baangad waa in sida ugu dhaqsiyaha badan baangadaasi amba u soo sharciyeystaa amba u isaga dejiyaa haddii laamaha amniga u tagto waliba aad u sheegto sida ay wax u jiraan walibana aad tiraahdo baangadan waxaan ku difaacayaa naftayda haddii halis ay soo hujunto waa suurtagal inay ku sharciyeen kuna aqbalaan warqad warranty ahna lagu siiyo aan ahayn wixii halis gelin kartaa naftaada oo adiga ayaa noqon kara tuhmanaha ugu weyn ee dambiilaha ah waliba suurtagal noqon karto in lagu fahmo inaad adiga taadilaa
fadlan haddii aad tagaasiley tahay taana ilgaara ku fiiri haddii aad baangadaas soo sharciyeysan karinne fadlan iska soo dhig oo iska bixi si aadan u noqon dambiile ad ku mahadsantihiin alaab dawashada muuqaalkan haddii aysan tahay booqashada ugu horreysay mar kale iyo marxiga waxaynu si xushmadi ku dhaantay kaga codsana walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo sartaan sidoo kale waxaynu si xushmadi ku dhaantay kaga codsanayaa qof walba muuqaalka daawanaya inuu laagta ii sharti soo kaandar si guud ahaan muuqaalkeena uu gaaro bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan mid lamid inta kulmi doono waxaan idinkaga tagay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabad hawarto